السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبي السود هذا maanta marti waxaan oo ah Shucayb oo saaxiibkeen oo falanqeeyo isboorti ah iyo khabiir isboorti ah Shucayb soo dhow ciise cabdiqaadir ciyow waa ku salaam saaxiib adiga dhammaan saaxiibada kugu xiran waxaan leeyahay waqti wacan oo wanaagsan sanad wanaagsan bilowga sanadka kugu jirnaa marka waa idinku hambalyaynaa sanadka cusub Shucayb waa wiigi koowaad oo 2025 wiig koowaad kulan koowaad maaha Arsenal la dhashay horyaalka Ingiriiska 2025 marka wax lagu soo dhaweynaa wiigi ugu horeeyo kulan adag oo u dhaxeeyo kooxaha Manchester United iyo Liverpool kulanka toddobaadka waay kulanka toddobaadka 2025 la dhihi karaa maxaa kaaga baxay Man United isbedelka macalin ay sameysay ku saxneed ku qaldaneed see u aragtaa Man United isbedelka macalin ay sameysay ciyow kulanka ugu xiisaha badan ee 2025 ee horyaalka Premier League waa mid dhexmari doona kooxaha Liverpool iyo sidoo kale kooxda Manchester United Manchester United isbedel macalin ay sameysay oo Ruben Amorim laakiin waxaan aaminsanahay inaysan weli ka dhaqaaqeen halkii ay ka taagneed Erik ten Hag markii ay shaqada ka ciriyeen sababtoo ah Manchester United guuldarooyin xanuun badan ay la kulmaysaa tan iyo markuu imaaday Ruben Amorim wax isbedel ah kooxda ku dhacay male Liverpool oo ognahay iyana inay ku jirto marxalad wanaagsan iyo form fiican oo hogaamiyaasha horyaalka Premier League ay yihiin ayaa waxa uu kulankan kaga dhigan yahay inuu yahay mid ka mid ah kulamada xiisaha badan ciyow Manchester United markaa ku bilaawno Ruben Amorim in Manchester United ay keensato way ku saxsaneed laakiin hadda waxa shaqeynaya weli projectigi Erik ten Hag uu kooxda kaga dhaqaaqay ma jiro isbedel weyn ma jiro ciyaartoy kooxda ku soo biiri tan iyo Ruben Amorim ma jiro hadda shax la leeyahay Ruben Amorim kooxda uu ka bedelay oo Erik ten Hag wax ka bedelan oo kooxda la imaaday ilaa hadda wax la dhigi karo ma taagna taas bedelkeeda guuldarooyinka ku sii kulmaya xitaa Erik ten Hag waxa aaminsanahay waqtigiisii in kooxdu xoogaa ay hab isku xumaatay laakiin mararka qaarkood ay sii adkaan jireen laakiin hadda waxaad moodaa Erik ten Hag markii uu baxay kadib Manchester United in xitaa gurigooda Old Trafford ay ku adkaanayaan kooxaha yaryar ee Premier League marka Ruben Amorim shaqada uu yimid kooxda Manchester United waa uu ku wareersan yahay mana ahan macallinkii ugu horeysay ee kooxda inta imaada ee ku wareera hadii isna waxa uu qayb ka noqonayaa macallimiintii kooxdan soo maray ee ku sii wareeraya marka Ruben Amorim wuxuu u baahan yahay project wanaagsan waxaan aaminsanaan lahaa haddii uu imaan lahaa xil ciyaareedka bilowgiisa ama xil ciyaareedka aan bilaabanba hadduu imaan lahaa kooxdu wax badan oo isbedel u sameyn lahaa laakiin xil ciyaareedkii oo bilowday kooxdii kulamo qaarkood guuldarooyin la kulantay ayuu dhexda kaga soo dhacay marka way adag tahay in isla markii bedel uu sameeyo oo kooxda formkii uu kusoo bedelo iyadoo suuqii xitaa uusan xirin marka Janis hadda uu furan oo ku aadan in suuqa kilibsiga ciyaartooyda uu furmay marka wuxuu u baahan yahay in lacag la siiyo kadibna ciyaartooy kooxdu uu ku soo kordhiyo si Manchester United wadadii guulaha dib ugu soo laabato hadda waxa la dhahay kulamada oo Ruben Amorim Manchester United hogaamiye horyaalka 8 kulan ay ninka ten Hag ahaa oo baxayna 9 kulan kooxda hogaamiye haddii la fiiriyo ten Hag 9kiisa kulan uu hogaamiyey kooxda 3 kulan ay badisay Amorim kooxdiisana hadda 2 kulan ay badisay waxa uu si daranba ten Hag waqtigu joogay kooxda ayadoo afar difaac dheelayso afar kalansheed ay baxday dhibaatada ugu daran Amorim ugu haysto wax waaye kooxdiisana Bruno ma dheelayso kalansheedna ma baxayso muhiimadda kooxda haddii 5 difaac ku jirto oo goolna laga dhalinayo micno ma keenayso Amorim 5 difaac uu ku jiro iyo 2 saay mar walba kooxda Bruno ma dheelayso horma u baxayso kooxda kalansheed hal kulan ay baxday Everton ee 4 euro u basay ten Hag waa uu waqtigiisa 4 kulan oo kooxiisa iyadoo gool laga dhalin baxay 9kiisa kulan ten Hag 4 kamid ah gool ma laga dhalin kooxiisa marka hadii la fiiriyo ninkan Amorim ah kooxdiisa 13 gool laga dhaliyay intuu joogay 8 kulan 9 goolna isaga dhaliyay kooxdiisa 4 kulan kamid ah gool way dhali weysay ana kooxdiisa ten Hag mar 9kiisa kulan u horeysay kooxdiisa gool laga dhali waa 4 kamid ah hadda laakiin Manchester kan oo waday ninkan Amorim ah kooxdiisa 9 kulan gool 9 gool ay dhalisay 4 kamid ah 13 kulan 8 kulan hogaamiyeen kooxdiisa gool ma dhalin ma la dhihi karaa marka maamulka kooxda Manchester United khaladku u weynay galeen xil ciyaareedka intuu socday iyo waa sax maamulka Manchester United waxa aaminsanahay inay ku qaldanaayeen in horyaalkii oo aan bilow ahayn horyaalkii oo dhaxda kulamo qaarkood uu sii hogaaminay Erik ten Hag in shaqadii ay ka booriyaan oo waliba bedelkiisa Ruben Amorim ay keenaan ciido waxyaabaha xusuusta badan waxa kamid ah Ruben Amorim intuusan qaban jagada tababarnimo ee kooxdan waxyaabaha la hor keenay waxa kamid ah oo isaga codsaday oo maamulku kaga codsaday in xilli ciyaareedka 2025-2026 kooxda uu ku soo biiro
intii hadda shaqada tababarnimo qaban lahaa waxa uu aaminsanaa in Sport Lisbon uu la dhameystay xilli ciyaareedkan laakiin kadib isaga shaqada loo dhiibay laakiin maamulka kooxda Manchester United ayaa waxay hor dhigeen codsi ama warqad ku aadan in kooxda hadda jagadeeda uu qabto ama uusan wiligiis arki doonin marka waxaan aaminsanahay haddii ninka Ruben Amorim 2025-2026 horyaalkan markuu u dhamaado oo meel uu dhaco kadib kulamada fasaxa iyo nasiinada ee labada bil ah kadib kooxda loo dhiibi lahaa waxaan aaminsanahay horyaalka bilow fiican uu noqon lahaa meesha ka qaldan tahay kooxda ogaan lahaa ciyaartooy raadsan lahaa laakiin hadda macallinkii la buriyay Erik ten Hag oo guuldarooyin kooxda dhexda kaga jira isla markii la soo gelay haddii suuqa u furnaan lahaa waxay ahayd suuqiyo xiran haddana dhexda laga soo gelay marka macallinka ma jirtaba isbedel weyn uu sameyn karo sababta hadda waxaan u maleynayaa kulankii Bournemouth oo guuldarada kala kulmayay waxyaabaha uu Erik ten Hag Ruben Amorim ka dhawaajay waxa kamid ah kooxda Manchester United waxay u baahan tahay gool haye Andre Onana booskiisa ku cariiri sabab kale ma keenin sababta keentay waxa waaye Erik ten Hag markuu joogay kala sheelay bixi jirtay kooxdan oo wayba yarna goolish laga dhalinayo tani markii Ruben Amorim imaaday Andre Onana xitaa waa isbedelay macnaha waa goolish sida uu socdaan waa sababtu uu ninkan wuxuu u baahan yahay qof kale oo pressure saaro booskiisa labaad marka waa dareemi kartaa macallinka Manchester United in waqti xaadirkan project sax ah oo kooxda uu ku maamulo isku gacanta ku heenin ilaa tii Erik ten Hag 2024 ku maamulayo kooxda ee shaqada lagu booriyo inuu ku sii socodsiyo mooyee ciyaartoy qaarkood hadda dagaal kala dhaxeeya Ruben Amorim Marcus Rashford kamid ah Garnacho kamid ah iskuma fiicna Rashford waa suuq waa sii buuxiyaba marka waxaad moodaa Manchester United way ku qaldaneed in horyaalkii oo bilaab ah oo macallinkii kooxda Erik ten Hag marna laga badinayo marna clean sheet fiican oo kooxda form uu soo gelinayo in shaqadii ay ka buriyaan oo macallinkan ay keenaan iyadoo macallinkan aysan awoodin in ciyaartoy suuqa uu ka keensado marka isbedel waxa imaaday xoogaa isa saaran Ruben Amorim uu fiican macallin ahaantiisa xitaa Ronaldo ka hadlay ninka odayga oo yiri duufaantu way dhamaanaysaa qoraxda soo bixaysa inuu adkaysta loo baahan marka Manchester United waxa laga haystaa dhinac maamulkiisa aaminsanahay oo aan kooxdu u ogoleen inay qaris fiican geliyaan suuqa la geliyo oo ciyaartooy wax ku oolo kooxdan formkaad ay ku jirto ka bedelaya ay keenaan marka dhibaato weyn haysta Manchester wayna ku jiri doontaa saan aaminsanahay intii Ruben Amorim suuqa lacag fiican laga siinayo oo kuwa hadda jooga kooxda ama uu fasaxaya kuwa bedelkooda Sport Lisbon hadduu ku laabto Manchester United koox riyo waa ciyaartooy waaweyn ma diidayaan saan aaminsanahay laakiin waxay u baahan tahay dhaqaale u baahan tahay marka Manchester dhinac maamula laga haystaa saan aaminsanahay Ruben Amorimna hadda kooxdu ma wala dhigi karaba ciyaartooy hebelo kooxdu u fadhiya ama qof hebelo keedku ku haya oo kooxdu u baahan tahay ma wala dhigi kara ciyaartooy walba uu tijaabiye guuldarooyin sida u socdaan marka Manchester lacag u baahan tahay aaminsana dhibaatada ugu weyn waxa waaye tijaabiskiisa badan Ma United macal Amorim hadda waxa lagu arkay kulamada badankeed ciyaaraanku hadda soo safiyo badankood qaarkood uu fariisanaa kulanka soo ciyaartooyda misla qabsan karaan marka hadii dhinaca kale aadno koox markay ka jabantaa koox kalena u toosan tahay kooxda Liverpool cirkay maraysa 18 kulan 45 dhibcood ay maraysa kooxda aad taageertid waay Maxamed Salahna season ku fiicnaay oo ciyaaryahan gali karo uu ku jiro hadda ciyaaradkan dadka qabiirada kubadda cagta waxay dhahaan ciyaaryahan season gudihiisa goolashu ugu badnaa kulug yeeshto Maxamed Salah noqon doono sababtoo hadda 18 kulan uu dheelay wuxuu marayaa 30 gool kulug leeyahay 18 kulan 13 caawin iyo 17 gool leh formka Maxamed Salah Liverpool ma ku sii wadi doonaa ani dad kale ila mid ahna waxay qabaan Liverpool formka ku jirta Liverpool ma ku jirtay Maxamed Salah formkiisa Liverpool ku socotaa hay aragtida ciyo markaad eegto xilli ciyaareedkan bilowgiisa waxyaabo badan oo diiwaangeliya kamid ah taageerayaasha kale aan ka diiwaangeliyo waxa kamid ah Jordan Klopp muddo 9 sano kooxdan maamulayay waxa la dhahay Jordan Klopp markuu imaanayay kooxda Liverpool wuxuu ugu imaaday ciyaartooy aan la ka seenin markaasuu kooxda inta suuqa geliyay tayo sameeyay falsafada la imaaday oo shacab wuxuu dhisay kooxda ay ku tartami karto dad badan waxay aaminsanayeen in Liverpool ay burburi karto Jordan Klopp markuu meesha ka baxay oo wax badan oo kalsoonaa lagama qabin ninka la yiraahdo Arne Slot oo kooxda hadda hogaaminay laakiin xilli ciyaareedkii markuu bilaabay waliba 5 kulan ugu horeysay markii Arne Slot bandhigiisa la arkay dad badan waxay aaminayeen in Liverpool ay tahay Jordan Klopp sagaalka sano hogaaminay in macallinkan uu ka fiican yahay dad aaminsan ani ahaan marka Liverpool iyo Mohamed Salah way is saarayeen formka hadda uu ku jiro Mohamed Salah ee uu ku hogaaminayo goolalinta horyaalka ee uu yahay ciyaartooy caawinta ugu badan sameynaya
uu yahay markaad eegto kan Liverpool wax badan ka caawinaya hadduusan dhalin kulanka kale ama hadduusan dhalin caawinayo haddaysan ahayn israacsanayo caawintii goolasha waxaan isleeyahay Mohamed Salah ay Liverpool ba sanad waxay qaadanayaan inaba caadiyeen dad badan waxay isweydiinayaan Salah heshiiska kooxdan sanadkii ugu dambeysay uu yeelayaayo oo xil ciyaareedka saas ugu wanaajinaya kadibna muu rabo inuu baxo horta waxa oo qadaraaska maamulka kooxda ay qorsheenayaan toddobaadada soo aadana Liverpool ay rabtaa inay heshiis 2 sano hor dhigto Mohamed Salah formkan hadda ku jirto Liverpool waxaan miisanahay City oo jajaban oo loolankii ka dhacday Chelsea oo yana kulmada ugu dambeeyay ognahay inay dhibco lumiyeen laakiin mar ay soo noolaatay waxaan isleeyahay Liverpool fursadii ugu weyneed ee soo helin macallin kooxdan soo maray xitaa Jordan Klopp ku uu haystaa Arne Slot formka u fadhiya shaxdu waa u fadhisaa Mohamed Salah bandhigiisii Liverpoolna waa ay heestaane sanadka ciyow adi iyo kuwa Manchester taageera horta Manchester sheegire laba Manchester horta xaq iga dhig Chelsea maalmo xoogaa ciriir Ingiriis hadda xitaa kalsooni kuma qabo Chelsea Arsenal kuwa taageera waxa isleeyahay xoogaa waa idan muujin karaan laakiin sanadkan Liverpool ma loo istaagi kara ay saadaalintaada kulanka ciyaar kulanka baan ku sheegay markii hore ama sanadihii hore kulanka waxa uu arkay kulan weyn oo taariikh leh oo yaani asliga kar Manchester way ku adkeen kartaa laakiin hadda Ruben Amorim oo wareersan kooxdan uu guul daro maalmahan aan guul aanan arkin Liverpool oo u muuqato kaalinta koowaad inay ka soo degay kulankan waxa aaminsanay Liverpool inaysan la celin karin oo kulan normal oo iska noqonayo Liverpool oo guush iska leh haddaysan 3-1 ku badin afri waa si dhalanaysa aaminsanay ciyaartooyda kooxda horta Man United oo Anfield ku badisay 2015 waqtigii Joe Martin labada gool niga dhalinay aad ugu dambeysay hadda Anfield la jooga Anfield kooxa oo ku wasatay ما فيري وأنفل وحاول يقدرن فهم كعيارتوي أنا صح كون تقبت على محل العيارات وحقول اليوم أنا مرة تضوي مرة هل العيارات بيجي تضوي وحقول كل اليوم أنا لم يتون قول يا سيدي تقول عن هل العيارات كده ليفربول كانت كود كجرت صالح وفما أنا لويس دياس يا كودي كاغبو وليبا يكون أفرط والله يعني أنا أنتي توني لك بدون أنا حالة في عنو ليفربول كجرتو إيه حالة حن أو كواحد ما ينات كجرتو لكن كل عدد قوي هل مرة نيجي تقدم كل فتاني مركز عشان كل فتاني مركز لقيته كل عدد قوي يقول لا لسه كده نيجي لكن أمرون يكون عيسى أوجد عشان في الدفاع كجرتو يفهم كصالح كجرو حد اللي جرب سيو تونيل ليفربول تونيل كوبا دانتو dhinaca kale da ogalno Arsenal ka oo FC Fana iyo kulankooda Brighton kulanka hore ay Brighton waxay galeen hal oo weyn xataa Rice Rose ka qaatay oo inay ka bixi waayeen Albiter ana kuna nacib yahay taageer Arsenal waxay keeneen bo Albiter markuu qalad galaan laga dhigo Albiter anaga soo horjeediyo xiriirkana rabin iyo FC Fana ay caadi noqday way bedeleen kooxda Man United aheed faanku way ka qaateen hay kulankaas maxay leedahay horta Arsenal markaad ay kiciyo waa kooxda labaad ee la leeyahay Liverpool ku cariiri karta ku guuleysiga horyaalkan marba koox haday tartamay taayna hamigeeda ciyaarta waxa waa 3 dhibcood ciyaarta inay si walba ku raadiso waxa isleeyahay Brighton waa koox adag gurigeeda la jooga kulankay bilowga ahaana hal ay soo galeen barbaray soo galeen kulankan away waaye Arsenal waxa isleeyahay Arsenal si walba oo ay yaani guusha ay ku heli kartay u raadin doonta waxaan aaminsanahay inay Brighton oo yaraan ay ka gudbi karaan hada ama ha ku dhibtoodaan ama ha ku raaxaystaan laakiin waxaan aaminsanahay Arsenal inay kulanka ka gudbeyso Brighton maadaama ay yihiin koox doonaya inay ka faa'iideystaan hogaanka horyaalka oo Manchester ay ku haleynayaan Liverpool Arteta oo ognahay toddobaadkan wareysi ugu bixi waxa uu yiri waxa aan sugayaa kaliya korta kulamada iska dhaaf uu yiri kulamada ay ciyaaraya kun walba final uu yahay laakiin waxaan gaadaa uu yiri hal kulan ama laba kulan oo Liverpool ay gufto marka macallin dhibca kale ku tashanayo waxa isleedahay xawaa tiisu meel dhigtay marka Arsenal way ku gudbeysaa kulankan saamisana Bukayo oo maqan yahay saaka maqan yahay maalmahan Gabriel Martinelli iyo Kholoyina lagu soo dhisay marka waxa isleeyahay war buuxin kara hadda Arsenal ay badinaysaa saadaalis anigu 1-1 Brighton iyo Arsenal hal ay gali doonaan halalkii FCO yaayeen FCO ay hadii ay qabsadaan laakiin hal ay gali doonaan kulubkooda camal
mar labaadna inay roso qaataan iska ilaaliyaan albitra nugu jiifay ma waxaan sharci waay haddaa bruno adoo lagaa dhiga darbiisid jaalaa leedahay jaalo kale haddaa qabtane roosaa ku baxay fc oyahay saasaa ugu tagaa saasaa ugu tagaa ayka arsenal hadday badiso waa faanayaan haddii laga badiyana horta marmarsiin la'aan iyaga maba noolaan karaanba waxay ku leeyihiin ma noolaan karaanba waxaan kubadda cagta sharci kala qoran waa albitra wuxuu jeebkiisa kasoo baxsanaya maaha kubadda haddii firimbi yeerto aa gool leedahay haddaa darbaysid jaalaa leedahay taasna inay ogaadaan waayo kooxdii oo saddexda kulan u dambaysa guulayso weyse ee Chelsea Crystal Palace oo kun koowaad hal galeen ereber ma ku dhawaatay ama hal may ku dhawaatay ma ogi haya ay kor Newcastle United iyo Chelsea markaad eegto ciyow Newcastle ma Crystal Palace Crystal Palace iyo Chelsea markaad eegto Chelsea horta waa koox oo maxaa ku raadayay mar soo noolaatay si aaminsanahay waliba qalqal badan horyaalka ku furtay iyadoo xil ciyaareedka lagu kafrlaatan ku shil bilowgiisa aan ogeyn in Chelsea toddobaad sideedaad sagaalaad ay ka soo reference Enzo Maresca horta inuu meeshan keenaa sharaf ugu filan kooxdan ay taageerayaashooda haddaan ay kulankaasi Crystal Palace la ciyaarayaan Enzo Maresca mar kale wuxuu la kulmi doonaa si aaminsanahay tijaabo kale aad u adag waxaan aaminsanahay kulankan maadaama uu yahay kulan derbi ah oo London labada koox ay ku wada dhisan yihiin Enzo Maresca mar kale ku fi doonaa waa laga adkaana ma dhahayo barbaru laqi doonaa mar kale Enzo Maresca ay hadda ka gudubna kooxda oo horyaalka weligeed qaadi jirtay ee Man City ee sanadkan dhulka gashay West Ham u buuxisay West Hamna isbuuc hore ay ka soo tijaabiseen 5 gool ka soo dhaliseen ay Man City West Ham 2 gool ma ka dhalin kartaa adika 5 ka dhaliseen ciyow Man City oo kulkii ugu dambeeyay xitaa waan ognahay inay soo adkaadeen Pep Guardiola wuxuu aaminsan yahay wadadii aan soo laabtay ama wadadii guulaha ku soo laabtay yiri waraysigu bixinay West Ham United koox shan laga soo dhaliyay guuldarooyinka ay ku sii socdaan ma isdhahay iyagoo Itixaad ay booqanayaan halkaas dhibic ka soo heli doona ma isdhahay ugu yaraan kooxdan hadaan 2 gool laga dhalin waa laga soo adkaana Man City waxa aaminsanahay inay mar kale kulankan ay adkaan doonto oo West Ham ay meel isaga leexdo sababta West Ham in muuqda xasaas leeyahay wax buuran Manchester United ama Manchester City ay kaga hortagi karaan marka Itixaad ay booqanayaan City kulanka ugu dambeeyay way soo laabatay waxa leeyahay City wali waxay ku sii socon kartaa wadadeedii guulaha oo kulankan West Ham ay ka adkaan karaan aad iyo aad u mahadsan tahay waxaan isla arki doonaa saadaalanta bixitaani bixiyay kuwa guulaysta labadeena qofkii oo saadaalintiisa guulaysato ama soo dhaweeyo tusaale ahaan hadda tusaale ahaan kooxda Liverpool guula u saadaalisay aniga guula u saadaaliyay dhibcaha waa wala helaynaa farqi rabtaa ku badisay Arsenal guula u saadaalisay aniga Braga u saadaaliyay haddii Arsenal Braga gasho ana ka guulaysta hadii badiso aday guulaysatay kooxda Man City labadeenaba guula u saadaalinay ana xataa Man City inay badi kartaa aaminsanahay 3-0 haday ma sheegan hadda shay weey laakiin Saadiyana guula u saadaalisay labada marka hal meel oo kala duwanahay Chelsea iyo waxa kala duwanaa doona Arsenal Chelsea oo badi doontaa Tony Lane ku badi doontaa alla Chelsea labadaas oo kala duwanaa labadeenaba waa wanaagsan habeen wanaagsan qof walba waqtiga u tahay hay maxaa waaya aniga adiga waxa kala bixinaa maalinta Isniinta noo balana ana Isniinta ma santaa